عليكم صاحبيال soo dhawaada waa Macalin Maxmuud cashkaan waxaanu ku baranaynaa 10 kan erey meesha noo saaran ereyga koowaad interfere waa faragelin arrimo aanan ku oolin ama waxba aan ka galin ama meel aan lagaaga baahnayn inaad soo dhex gashid isku soo dhex turtid yes you are meddling with a situation that you are not needed yes meddle ay isku macno yihiin interfere marka waa faragelin for example please don't interfere with my work shaqada soo faragelin ereyga labaad landscape waxaa la yiraahdaa dhulka marka sida aad u fiirisid walxaa ka muuqan kara ku yaali karo for example buura ku yaalo dooxad baa ku yaalo adiga muuqaalka guud ee marka aad fiirisid iyo walxaa ku yaal ayaa la yiraahdaa landscape for example hadaa dhaho I like the green landscape I like the hilly landscape yani dhulka marka aan fiiriyo buuraha leh baan anigu jeclahay ereyga saddexaad laughter waa qosol yes laughter for example I had children's laughter waxaan maqlay carruurta qosolkooda yes her laughter was loud iyada qosolkeeda yani aad bay u qoslaysa yes dhool cadeynta waxaa la yiraahdaa smile qofka marka amal uu dhaho taas iyadana waxaa la yiraahdaa chuckle ama waxaa kaloo jira giggle ayadan oo ina qofka ilkaha uu ku tusaa yes ereyga afraad mea waa wax aanan muhiim ahayn iska yar adigu qalad yar ama muhiim aanan ahayn wax yar as they just a very small thing that's not important yes for example hadaa ku dhaho it was just a mere mistake or iska qalad yar yani wax saa muhiim u ama aanu ahayn erey shanaad meta waxaa la yiraahdaa waxaa jiro meeraheena aynu ku jirno dhagaxyaal fara badan waxaa jiro xagga cirka jiro they are basically rocks waa un dhagaxun yes sida meeraheena asagana uu qoraxda u wareegana ayagan iskood u wareeganayaan qaarkood iska taagan yihiin marka qaar bay marka soo dhacaan oo waxay soo dhaxgalaan meeraha anaga aan ku noolnahay ee dhulka ah atmosphere-giis okay tusaale hadaa ku siiyo marka qaar hadii aska joogtid cirka waxaad arkaysaa wax cad oo sida u maraysi falaar ama waran la tuura kuwaas waxaa la yiraahdaa meteor yes adigu dhagaxyada cirka ka soo dhaca la yiraahdaa ereyga lixaad neat waa qofka markuu nadiif yahay nadiif oo kaliya ma ahan wali uu organized yahay yes waa nadiif dharkiisu waa nadiif hadana way nidaamsan yihiin way la laaban yihiin meel bay si fiican u yaalaan of course qofka xalay dharkiisu inay nadiif yihiin laakiin ay isku dhaxdaadsan yihiin aan la laabin aan la kala nidaamin that's just neat not that's just clean and not neat waa nadiif laakiin neat ma aha because neat nadiif waa dhaafsan yahay okay neat waa nadiif hadana way organized gareysan yihiin way nidaamsan yihiin okay tidy ay isku macno yihiin qof markay dharkiisa isku dhaxdaadsan yahay ama gurigiisa isku dhaxdaadsan yahay waxa la yiraahdaa messy yes for example my house is a mess ereyga toddobaad nest waxaa la yiraahdaa buul shimbireed just very simple waa buulka ay shimbirta dhisato si ay carruurta ugu korsato ereyga sideedaad pale waa qofka markii uu jirkiisa uu caadiya inta badan haddii dhiig uu kugu yar yahay maqaarkaaga anaga Afrikaan baynu nahay naglaba dareemi karo laakiin gacanta daa fiiris gacantaada waxay noqonaysaa very pale gacan aad u cad yes ama isha daa fiiris meesha hoose iyadana waxay noqonaysaa pale yani pale waxa waaye maqaar aad u cad oo yani inta badan waxay tusaa dhiig la'aan ereyga sagaalaad passive waa opposite-ka active waa firfircoon passive aanan firfircoonayn for example haddii shaqaad qabanaysid shaqada aad soo baratay ee dhakhtarnimada ah ee jaamacad aad kaga soo baxday taas waa shaqada active-ka ay qabatid ee soo baratay mishaariga ku subax ay u kala hadid galabka aad ka timaadid passive income hadii lagu dhaho saari dukaan baa meel kale ka furatay qof baa kaaga shaqeeyo dukaankaas lacag ka soo galayo aydan xal yiraahdaa passive income qaabkaas markii ganacsi lacagaha la joogo laakiin in short passive waa qof aan firfircoonayn active waa qof firfircoon lastly ereyga tobanaad plain wax markay cad yihiin very simple very clear yes wax markay cad yihiin ama hadii kale aan dhaho for example wax markay yani waadax yihiin ayaa la yiraahdaa plain he gave a plain answer wuxuu bixiyay jawaab nadiif ah jawaab waadax ah jawaab aan madow ku jirin cashka intaas ay ku yahay keep learning and have a good day bye bye